Lenswa waa mid ka mid ah mucjisooyinka dabiiciga ah ee ugu cajiibsan Brazil, waxayna ku taallaa gobolka Maranhenses ee waqooyiga Brazil. Waa goob cajiib ah oo ay dadku aad uga helaan quruxda aan caadiga ahayn ee isdhexgalka saxaraha iyo biyaha. Lenswa kuma taal meel badeed ama xeeb, laakiin waxa ay ku dhowdahay xeebta Atlantiga ee waqooyiga bari ee Brazil. Waa dhul sare oo marka ay roobabku ku da'aan noqonaya buuro yaryar oo ciid leh, quruxdooduna ay tahay mid dabiici ah. Biyaha roobku waxa ay sameeyaan harooyin qurux badan oo biyo cad leh oo ku dhex yaalla buuro ciideedyo dhexdooda. Waxa ayna u eg tahay saxaro marka laga eego muuqaalka kore, laakiin ma ahan saxaro caadi ah. Waxaa laga helaa harooyin cajiib ah oo biyaha roobabku ay ka buuxaan xilliyada guga, kuwaas oo ku dhex yaalla buuro ciid leh oo dhererkoodu gaarayo dhowr mitir. Muuqaalka saxarahani waxa uu u eg yahay goob aan caadi ahayn oo leh malaayiin dooxyo oo ciid ah. Biyaha roobku ay isku soo ururiyaan, taasoo abuuraysa harooyin biyo cad oo nadiif ah oo lagu qubeysan karo. Dhulka Lenswa waxa uu ka dhashay hawlo dabiici ah oo ah ururinta ciidda oo ay daadadka iyo dabaylaha Atlantiga keeneen kumanaan sano ka hor. Samayska ciidaha iyo harooyinkani waxaa kaalin weyn ku leh roobabka ka da'a gobolkan, kuwaas oo sameeya harooyin biyo roob ah oo ku dhex yaalla buuro ciideedyadan. Qaabka buuro ciideedyadani ay u eg yihiin ayaa si dabiici ah loo arkaa in ay yihiin Lenswa oo la micno ah go'yaal ama furaashyo, sababtoo oo ah qaabkooda fidsan oo siman darteed. Haradani waxaa lagu tilmaamaa goob saxaro la moodo, laakiin runtii ma ahan saxaraha caadiga ah. Waa meel u eg saxaraha sababtoo ah buuro ciideedyada waaweyn ee halkaas ku yaalla waa wax ka duwan saxaraha kale, waayo waxa ay leeyihiin harooyin ay biyaha roobku ay sameeyaan, kuwaas oo u muuqda sidii harooyin cajiib ah. Roobabku waxa ay caadiyan da'aan xilliga Janaayo ilaa iyo May, waxa ayna taasi sababtaa in harooyin biyo cad leh ay samaysmaan. Biyahani waxa ay ku jiraan ilaa dhowr bilood kadib marka roobku da'o, gaar ahaan bisha Juun oo ah waqtiga ugu fiican ee booqashada. Biyahaas nadiifka ah ayaa abuuraya midabyo qurux badan oo buluug iyo caddaan isugu jira. Inkasta oo muuqaalka haradani uu u eg yahay meel qallalan oo saxaro ah, nolosha deegaankaasi waxa ay ka duwan tahay saxaraha caadiga ah. Noolaha biyaha sida kalluunka iyo duul-biyoodyada ayaa ka faa'iideysta biyaha roobka, taas oo abuuraysa nolosha cusub ee goobtan taalla. Dalxiisayaashu waxa ay aad ugu helaan dabaasha iyo socodka buuraha ciidda. Inta lagu jiro safarka, waxaad heli doontaa fursad aad ku aragto muuqaalka cirka oo dhulka ka muuqda, maadaama biyuhu ay ka turjumayaan muuqaallo indhaha soo jiita. Baaskiilada hawada iyo quusidda biyaha ayaa sidoo kale caan ka ah goobtaas. Mid ka mid ah waxyaabaha dadka soo jiita waa sida ay isugu jiraan dabaylaha qabow iyo biyaha kulul ee harooyinkan, taas oo ka dhigaysa jawiga meel lagu nasto oo aad loogu helo. Qof kasta oo booqda Lenswa waxa uu dareemaa in uu ku dhex jiro riyo dabiici ah oo la yaab leh. Deegaanka haradani ay ku taallo waxaa ku nool bulshooyin yaryar oo reer Brazil ah, kuwaas oo ku nool biyo-xireennada iyo xoolo dhaqashada. Taariikh ahaan, dadkani waxa ay ku tiirsanaayeen deegaankan si ay noloshooda u taageeraan, waxa ayna muujiyeen sida cimiladu ay ula qabsan karaan. Waqtiga ugu wanaagsan ee la booqdo Lenswa waa inta u dhaxaysa Juun ilaa iyo Sebtembar, waana xilliga ay harooyinku buuxaan. Xilligaas waxa aad ku arki kartaa muuqaalka ugu fiican ee harooyinka biyaha iyo buuro ciideedyada, taas oo kuu oggolaanaysa in aad si buuxda u dareento mucjisada dabiiciga ah ee Brazil. Haradani waa mid la yaab leh oo ay isugu yimaadeen mucjisooyin dabiici ah oo aan lagu arag meelo kale. Buuro ciideedyada
iyo harooyinka biyaha cad waxa ay ka dhigayaan meel caan ah oo loo dalxiis tago. Dalxiisayaashu waxa ay aad ugu helaan muuqaalada dabiiciga ah, socodka ciidaha, quusida biyaha cad. Waa goob mudan in la barto oo la booqdo maadaama ay tahay mid ku habboon dadka xiiseeya nolosha dabiiciga ah iyo mucjisada roobabka. Zanzibar ayaa noqotay goob dalxiis oo caan ah sanadihii la soo dhaafay, marka ay dad badan oo dalka gudihiisa iyo dibaddaba ka yimid ay u yimaadeen in ay arkaan mucjisooyinka dabiiciga ah. Inkasta oo ay goobtani tahay dhul dabiici ah oo aan lahayn taariikh dheer oo qadiimi ah, taariikhda dabiiciga ah ee samayska buuro-ciideedyada iyo nolosha deegaanka ayaa ka dhigaya meel xiiso leh oo mudan in la booqdo. Dalxiisayaal badan oo ka yimaada wadamada Yurub sida Faransiiska, Jarmalka iyo Boortaqiiska ayaa booqda meeshan cajiibka ah ee Zanzibar. Yurubiyaanku waxa ay xiiseynayaan quruxda dabiiciga ah iyo mucjisooyinka noocan oo kale ah. Dalxiisayaasha ka socda Mareykanku waxa ay sidoo kale ka mid yihiin kuwa ugu badan ee booqda. Dalxiisayaasha Mareykanku waxa ay caan ku yihiin safarada dalxiisyada ee goobaha dabiiciga ah. Sidoo kale waxaa yimaada dalxiisayaal ka socda Shiinaha, Jabaan iyo wadamo kale ee Aasiya ayaa si tartiib tartiib ah ugu soo badanaya in ay booqdaan Baraasiil, gaar ahaan meelaha dabiiciga ah sida harada Zanzibar. Muuqaalka aan caadiga ahayn ee buuro-ciideedyadan iyo harooyinka cadcad ayaa soo jiita dalxiisayaashu, waxayna doortaan in ay arkaan mucjisooyinka noocan oo kale ah oo aan caalamka meel kale laga arkin. Dalxiisayaasha ugu badan ee yimaada Zanzibar waxaa ka mid ah dadka reer Baraasiil, laakiin wadamo kale oo caalami ah ayaa sidoo kale soo booqda iyaga oo raadinaya waayo-aragnimo aan caadi ahayn oo dabiici ah.